فرحتي باللعب اليوم عيد يا أبي اليوم عيد يا فرحتي باللعب اليوم عيد فراشة قلبي هنا تطير فوق العشب اليوم عيد يا أبي اليوم عيد سعيد يا طيور اليوم عيد سعيد يا زهور اليوم عيد سعيد يا طيور اليوم عيد سعيد يا زهور اليوم عيد أحس قلبي يا أبي يطير من فرط السرور اليوم عيد يا أبي اليوم عيد يا أمي العيد أتى اليوم عيد قولي معي يا فرحتي اليوم عيد يا أمي العيد أتى اليوم عيد قولي معي يا فرحتي اليوم عيد عيناي يا أمي أنا مشتاقتين باتتا اليوم عيد يا أبي اليوم عيد والآن جاء العيد جاء اليوم عيد على حصان من ضياء اليوم عيد والآن جاء العيد جاء اليوم عيد على حصان من ضياء اليوم عيد يوزع الحلوى لنا والحب أمي والوفاء اليوم عيد يا أبي اليوم عيد يا ليت كل العام عيد اليوم عيد لا ينتهي طول الوجود اليوم عيد يا ليت كل العام عيد اليوم عيد لا ينتهي طول الوجود اليوم عيد نعيشه بفرحة دون حدود اليوم عيد يا أبي اليوم عيد ciidan oo ah ciida Carafo ayaa waxaa si wanaagsan magaalada Hyderabad ugu ciiday dadweynaha Soomaaliyeed ayagu ku nool magaaladaasi ciidan oo Soomaalidu ay meel gaar ah ku tukadeen si ay luqadooda wax isugu sheegaan ayaa waxa khudbadii halkaas ka akhriyay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Mursal Maxamuud oo asagu kamid ah ardada Soomaaliyeed ee halkaas wax ka barta sheekha oo khudbada qaybtii labaad af Soomaali ku akhriyay ayaa dadweynaha kula dardaarmay inay Ilaahay ku xirmaan waalidkoodna ay u baari sameeyaan ciidaha noocaana iyo waliba munaasabaadka diiniga ayaa waxa inta badan soo agaasima walaalaha tajamuca oo iyagoo dhalinyaro Soomaaliyeed halkaasna dadweynaha ka wacyigeliya arrimaha diinta waxayna inta badan soo agaasimaan munaasabaadka diiniga sida ciidahan iyo waliba munaasabaadka kale ee muxaadarooyinka dadkii halkaas ku soo tukaday ayaa waxa wajahooda ka dareemaysay farxad weyn ayagoona isugu hambalyeynay ciida Carafo waxayna sidoo kale hambalyo u direen dhammaan ummadda muslimka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxayna halkaas salaamo uga dirayeen qaraabadooda iyo waliba waalidkood markii ay ciidu soo dhamaatay ayaa waxaad ku arkaysay wadooyinka Soomaali badan oo halkaas koox u socota ayagoo qaar kamidana ay caruurtooda gacmaha haystaan دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك